السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. marka idin fadlan ku soo dhawaada casharada imtixaanaha mid ka mid ah casharkeennii ugu dambeeyay sidaad ku daawaneyseen waxaan habaysanay oo inoo shaqeeyey Armitage kasii horeeyana waad intii daawatay maaragtay muusa shaqeyneen uu talagalay inaad tuso markuu shaqeynay iyo sida loo habeeyo hadda uu noo shaqeynaya haddii la yidhaahdo marka Armitage aad ayuu muhiim u yahay siyaabo kala duwan oo loo adeegsadaa sida in scan lagu sameeyo network-ga kombiyuutarada kala duwan oo Soomaaliya maaragtay inay isticmaalayaan functionadooda ayaa lagu kala ogaadaa iyo boortiyada furan ayaa lagu kala ogaadaa dhanka faa'iidada iyo dhanka faa'iidada maaragtay uu leeyahay marka dhanka faa'iidada siyaabaha sameynaysa dhanka faa'iidada markii uu qofku rabo inuu dabcan attack ku sameeyo network-ga wuu adeegsanayaa waana macluumaadkaas ayuu helayaa kadibna wuxuu sameynayaa inuu maaragtay attack sameeyo marka network security-ga ayaa dabcan marka furanaysa maaragtay ayaa aad u gudbinaysaa marka dabcan waxaan gudagali doonaa haddii la yidhaahdo hadda terminalka furaynaa terminalka ayaan fiirinaa hadda Armitage aan ku qoraynaa hadda Armitage ayaan qoray wuu soo furmayaa then connect ayaan leenahay yes aan leenahay marka dabcan hadda uu maaragtay xirmayaa oo noo shaqeyn doona haddii la yidhaahdo okay wuu furmay haddii aan soo gaabiyo si aad uga arki kartaan ka dhigo dabcan waxaan isku dayaynaa insha allah inaan maaragtay ama wanaagsan u aragto insha allah okay waxaan maanta hadda first aan ku bilaabaynaa waxaa weeyaan halkan sidaad ku aragtaan wax computer ah oo aan scan ku sameynay network aan helnay ma jiro si loo helo marka waa inaan scan sameyno waxaan tegaynaa host waan soo aragnay dabcan map waan soo aragnay kuwi loo sameynaa Armitage waa leeyahay isagana aad loo siiyo waa maaragtay marka waxaan sameynaynaa scan ayaan sameynaa scan marka laga badan laga sameeyaa marka waxaan tegaynaa qaybtan quick scan ah oo OS detect macnaha operating system-ka ayaa maaragtay okay network ama internalkii IP address-ka marka horay waan laba aragteen maadaama aan doonayna inaan xidhno computerkii aan maaragtay leedahay ama xidhnahay maaragtay aan attack leedahay okay 192.168 dot 2 sorry dot 211 dot 0/24 ayaan maaragtay ku sameynaa kadib okay aan leenahay marka within network-kaas /24-kaas ayaan rabnaa inuu noo soo qabto
IP addresskaas mar walbaas inta hoos imaanaysa ay shaqeynaysa markaas oo maaragtay toos u shaqeynaysa ayuu raadinayaa marka uu soo qabto waxaad arkaysaa versionka uu yahay waxaad arkaysaa operating systemka uu yahay versionkiisa service pack 1 miya 2 miya 3 miya computerka magaciisa waxyaabahaasu soo koobaya marka hadda computer baa uu dhameeyey waa arkaysaan isla markiiba uu soo helay okay aan leedahay okay uu soo qabtay marka intaa uu soo qabto waxaad maaragtay dib u eegaynaa meelaha soo qabto qaybaha ayaan dib u eegaynaa marka aan fiirino waxaan ka aadaynaa kuwa ugu muhiimsan ka aadaynaa hadda waxaan halkan ku aragnaa IP addresska oo kaas ah okay calaamadahan ayaa lagu sii kala garanayaa operating systemka uu ku jiro hadaan dusha ka saaray calaamadahaas lagu sii kala garanayaa oo maaragtay Windows XP yahay laakiin gudaha markaad usii fiiriso ayaad sii helaysaa macluumaadka dhowr baa ku saabsan okay hostiga up waaye wuxuu halkan aad ku aragtaan boortiyada furan oo ah 25/TCP ayaa furan oo SMTP ah oo emailka ah ku shaqeynaya marka boortkan kaleeto oo asna port 3 ah oo 110 ah oo TCP ah asna waa email ayuu ku shaqeynaya marka boortiyada furan iyo kuwa xiranba maaragtay waa sii kala fili kartaa kuwa furan waa arkaysaa okay waxaan sii guda galaynaa marka oo aan doonaynaa inaan sii aragno inuu yahay Windows 7 ayaan maaragtay aan aragnaa wixii macluumaad marka waa sii guda geli kartaan waa sii fiiri kartaan Windows halkaan asna waxaan qornaa IP addresska Windows XP leh isla macluumaadka iyo qaybo kamid ah maaragtay marka waa muhiim marka ogaato marka qaybta aad doonayso inaad attack garayso haddana ku socdaa service active uu yahay marka hadda waxaan bilaabaynaa marka sidee baa attack u sameynaa marka waxaan idinkaga digayaa inaad maaragtay linkiyada aad si degdeg ah idinkoo qabsan aad click iskaga siisaan link kasta lagu soo diro waxyaabaha hadda inta badan laisku attack garayo ama maaragtay lagu soo diro oo linkiga ah linkiyada ayuu doonaya in laisku soo diro marka linka lagu soo diray inaad maaragtay click ku siin okay marka linkiga inaad click ku siin linki kasta haddaad click ku siiso waxaad la kulantaa waa xawaarta maxaad noqonaysaa marka ilaaliya iska ilaaliya linkada lasoo diray okay waxaan bilaabaynaa Windows XP iyo Windows 7 oo halkaan ugu diyaarsan Windows 2008 ayaa halkaan maaragtay laakiin Windows 7 weeyaan marka waxaan doonaynaa inaan ka bilaabno qaabka loogu habeeyo intaan isla aragnay hadda waxaan gudagelaynaa waa inoo diyaariyeen qaybahan waxaan gudagelaynaa qaybtaas marka halkaan markaad imaatid si aan u samayno marka qaybahaas waxaan samaynaynaa haddii la yidhaahdo qaybta markaad imaatid halkaan waxaan qoraysaa MS 11 intaa markaad ku qorto
halkaan marka halkaanaad double click ku siinaysaa ta markaa double click ku siisid kana kuu soo furmaya tan kuu soo furmaya waxaan sameynaynaa goortiga goorta aan rabno waxaa weeyaan 48 ayaa maaragtay kalimaadkaas qaybtana aan maaragtay islaax u sameyno dalka islaax u sameyno kan waa dareemaysaan 48 wuxuu ku shaqeeyaa dadka browserka HTTP ayuu ku shaqeeyaa intaan markaa sameyno waxaan ku leenahay language intaan markaan hadaysano marka waxaan u baahanahay inaan qaadano HTTP yes intaa dareysaan la socdo qaybtaan qaadano waxaylaadaan ku sameynaynaa intaan markaa highlight ku sameyno waxaan leenahay code marka okay code markaan idhaahno waxaan doonaynaa inaan tagno waad diraysaa waad diritaan ayaad sameynaysaa waad diraysaa qofka keli markuu ku siiyana wuxuu gelayaa isla marka heshiisuu gelaya marka waa tusaale ayaan sameynayaa marka halkaan waad oranaysaa intaan leenahay intan markaan ku nidhaahno waxaan dib u laabanaynaa halkaan arkaysaa isla markiiba gacantaa lagu dhigay kelig hadaad kusiiso gacantaa lagu dhigay waa la hayaa haddaad aragtaan calaamadan computerkan waa la hagrey waa hagreysan yahay waa arkaysaa gacantuu ku jira computerkaas okay computerka markii saa loo qabto hadda waxaa weeyaan waa arkaysaa lowdaco administrator client one gacanta ku jira marka gacanta ku dhigto waxaad ku sameynaysaa waxaad u hagaraysaa meesha aday ku taala waxaanse dabcan ugu talagala qaybtaan waa waxbarasho inaad ogaano oo aan maaragtay siyaabaha laisu soo galo meelaha la iska soo geli karo linkii waa keliga dhan la iskaga siiyo maaragtay aan la iskaga boodin ayuu la hubsan wuxuu ku saabsan yahay waxa uu ka leeyahay ayaa muhiim ah okay haddaan ogaanay computerkeena aan gacanta ku dhignay as administrator ahaan markaan gacanta loogu hayo waxay dushiisa tegaysaa right click ayaad ku leedahay waxaad imaanaysaa matter writer waxaad imaanaysaa qaybtan waxaad tegaysaa qaybtan explorerkaan imaanaysaa qaybtan markaad imaato maxaad sameynaysaa okay screen shot ayaad ku sameynaysaa marka qaybta dabadan leenahay waan arki doonaa screen shot ayaan ku sameynaynaa hadda okay kligaan ku leenahay screenka haddii aan aragno screenka qaybtan waad dareemaysaa kaas hadda saaran screen shot isla marka uu soo qabtana waa kaas waa arkaysaa waa kaas screen shot isla markiiba soo qabtay marka waad dareemaysaan computerkaas oo hagaraysa marka calaamadan baaragta waa gacanta lagu hayaa garduuba lagu hayaa macnaha waa garduuban yahay okay haddaan ku laabano isla qaybtii oo multiplaterka tree qaybta haddaan ku laabano haddaan maaragtay soo daadegno haddaan tagno marka browse fileska haddaan tagno okay haddaan ku laabano
waxa dhacaya ayaan eegaynaa haddii la yidhaahdo. Okay, arkaysa double click aan leenahay computerkaas wixii ku jira ayaa halkan ka maamulaysaa marka. waxaad awood u leedahay adaa administratorka meesha ama maraysaa marka waxyaabo badan baad ku samayn kartaa, waxyaabo badan ayaad ku samayn kartaa marka aad doonaysa wax meeshaan aad isticmaali kartaa. marka waxaan ugu doonaynaa dabcan inaan maaragtay dabcan la iska ilaaliyo oo aad looga feejignaado linkiyada la isku diray. haddii la yidhaahdo casharadu haddii la yidhaahdo waan sii wadi doonaa casharo kale oo ayagoo maaragtay xiisadada maaragtay sii soo bandhigi doonaa haddii la yidhaahdo. waxay aad muhiim kugu yihiin haddii aad barato cyber security, network security, hawshaan waa hawshaan marka waxyaabaha aad u baranaysaa oo inaad wax ku weerartaa ma ahan, laakiin inaad ogaato meelaha laga soo geli karo, siyaabaha hacking-ka lagu samayn karo, network-gaaga, shirkada aad u shaqayso, kambaniyada aad u shaqayso maaragtay dabcan meelaha laga soo geli karo, boorsiyada furan, waxyaabaha lagu samayn karo haddii lasoo maaragtay aad doonaysa adiga inaad fiiriso vulnerability wax loo yaqaano oo dayacaadda ka jira qaybtaas aad markaas ka shaqaynaysa inaad maaragtay tijaabo ku samayso network-ga oo aad ogaato qaybahaas laga soo geli karo. okay kan Windows XP saan kuu sheegay Windows XP haddii gacanta lagu hayo Windows 7 Windows XP oo hore aan kuu tusay isagoo maaragtay isagana u ahaa maaragtay sameynay inaan ahaa karano maaragtay oo isla gacanta ku dhigo. marka almuhiim waxaa la ismariyo dabcan Soomaaliya waxaa ka jira dabcan shirkado waaweyn ka jira dabcan marka shirkadahaas oo kale haddii dabcan aad u shaqayso ama aad shirkadahaas oo kale la shaqayso waxa u shaadana ay tahay network-ga waxa weeyaan cyber security adigu xilkaa saaran yahay marka in aad dayacaadda iyo meelaha laga soo geli karo aad maaragtay iyo boortiyada iska furan oo muhiimka ah maaragtay inaad hawshaas aad baaritaan ku samayso ogaato kuwa muhiimka aan ahayn aad maaragtay la xiro. marka casharkeena maanta wuxuu ku maaragtay saabsanaay siyaabaha iska ilaalinahay dabcan linkas inaan ku boodin aan kala ku siinayn waana qayb ka mid ah network security, cyber security haddii aad baranaysaa maaragtay dabcan waa aad maaragtay baranaysaa muhiimadda ay leedahay qaybtaas. marka waad ku mahadsantihiin daawashadiina tan iyo casharadeenna xiga haddii la yidhaahdo waa mar kale looga kaga tegaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.